odayaal warbaahintii Chase Media iyo Ismaaciil Xirsi Cigaal xogaha maanta inaga soo gaaraya gobolkii Laascaanood ama Sool way isdul taagi doonaa iyo waxyaabaha calaacalka iyo oohinta shacabkii haysta sidoo kale waxa isdul taagi doonaa nimankii kilirka shanaad maxaa inoo kala dambeeyay saraakiishii ugu waaweynaa ciidankii new booliska oo meel public fagaare isaga qodbadaynaya oo sheegaya jabkii soo gaaray tuulada dacwada ka soo gaaray iyagoo aan qarsan waayo waayadii hore wala qarqarin jiray iyana way isdul taagi doonaa waayahay bal haddaba waxa weeye aragtidaada commentiga ugu wadaag sidoo kale subscribe share iyo like waa xaqiina aan ku horeynay gobolkii Sool bal waxaad ila daawataa shacabkii gobolkii Sool oo si dhaba u hadlaya iyagoo waliba xanaaqsan oo maxay ka xanaaqsan yihiin wax allaaliya arigii 3 jirkii iyo 4 jirkii iyo 2 jirkii way isku soo gaaray afar arrafo way yiraahdeen macal maxaa sheegay neef siilid managi maxay u geyn waayeen afartii jahaba wana laga xidhay afartii wadaba qol baan dush kaga xidhanahay way yiraahdeen ilaahay oo xaqiisa nooga farish khayr qaba nooga furo mooyaan waa ku xidhanahay bay yiraahdeen qolka waa ku xidhanahay bal marka ka dhacday hoog iyo baaba ka dhacay iidii arrafo wala neef laga dhigayn dadkii gaajo u aqdeen laamigay balanbalayaan iyo qorraxda waa ku halka fadhiya ilaahay oo micina oo gargaaro sanadka lacagtii jaariyadu ma soo dirin ay sadaqada u bixin jireen ijaariyadow lacala waarkii ku yal saasa ku dhacday magaaladii odayaashii waa ku halka wareegaya iyagoo caqday oo koobshaa wax ka bixiya waayay magaaladii maanta saasa ka dhacday baa ka dhacday hoog iyo baaba ka dhacay iidii arrafo waayahay halka hadii aanu kaga nimaadno kule odayaasha ku halka marayo shaah looma shubo oo deel macal looma shubi doonaba macal hadhow baan loo shubay kelmadda kale ka qoraac weeye neef lagama dhiijin laba siyaabood bay noqonaysaa mar waxa weeye horta laguma ulxaysanba maxaa lagu ulxaystaa marka hore horta ulxade dadka salaada inta tukadaan nabadgelyada ku nool waxaan ku leeyahay sida mustaqirka u yiidaba marka hore ulxaystee meeshan in dhaweydba dad un baa lagu ulxaysanayo ka qarsoodiga loo dilayay ka babliga lagu dilayay waa kuwii ku farabatay dee marka waxa weeye taayada xog fogaan maayo dadkan u leeyahay shaah loo soo kuwii dibadda wax ma soo dirin galeydii yareeda xagga firdhiye ka balamiye lama soo dhiibin war waxaas horta waxa weeye inna wax eedam ya naga saaraysaa waxay la tahay waa maya maya way kelmadu ku soo ururaysaa sidaasaana loogu sii laydinku sii wadayaa afarta jahaba naqaska laydinku dhijinaya markii soo baxsaday ee soo yar dhex quusay waa ku halka noogu yimanay ninkii aad noo maagi jiray xagga Facebook qoraalada soo dhigi jiray ugu faraabadnaa gaarigiisii waxaan ku arkay maalin dhow soo kinaal taagan burco ina faradhalaqi wax la yiraahdo mooyee magaciisa qoraal baan idinku soo dhigi doonaa description-ka ina faradhalaqi mooyee waa ninka waa la garanayaa waayahay ariga waxay ka soo wareejin jireen Ethiopia ogaadeen cagdheer ku soo mari jiray taas lagu soo cashuuri jiray waxay nimanka habar Yunus bay naf soo bidaan ay soo dhex maraan oo naqaska ka sii yardaayay ilmaada reyaalo anagu horta waxa la yiri shibirtii geedka ka duushay tirigeeda isxiji waan ka duulayaa shirigeedka awal meed saarnay anigu wadadaas intay xidhnayd waxa weeye inta ay aniga danahayga oo dhan fuleenba xoolahaygu maanta maalin ay ka qaalisnay ma jirin neefkii $300 budikada kaga dhaqaaqay oo $300 ilaa guriga laga siisan xagee ka yimaadeen guriga marka uu joogay 130 ilaa 150 buu ahaa gurigiisa marka uu xeradiisa ku jiray inta u dhaxaysa gaarigii baa qaaday caafimaadka baaray cawska loo dhigay kii bahalkii cashuurta ka qaaday kii dhegta soo qabanayay baa intaas oo ninbaa si kala macaashka gaarina lacagtaas tii lacag Soomaaliya $300 uu kaga dhaqaaqay tikida waa inta Soomaaliland gudaheeda ku soo noqonaysa ama kii neefka balaha ha qaato ama ka cashuura ama ka digada ka xaaray qaato waxa weeye arigii dhabeeyada iyo dhaga dheerta iyo wax hortaniyo maanta waa maalinta kaliya aan si wacan u arkay si wacan u yidin nin walba malaad wadarkiisa meel kasta lagu yidiyay taas waxay suura geliyeen waa wadooyinka idinku iska xidhaan lagu kama nax iminkana anaga hanoo soo ooyina wax eedana naga saarina
waan horaan idinku sheego anigu dee bulshada waan usoo gudbiyey shacabka reer sool maanta maalin ay ka baahnaa inaanay jirin laakiin waxaan naqaska ku dhajiyey inama yaryaroo raamale oon cidna wax ka dhegaysan oo markay gaadsoodaan kaba qalqalanaya 400 ariga halkaa lagu qabtay u hodogeeday intii badnayd ta qalqasheen ninkii lahaa yidhaahdaa daba kaxayso dibicii inuu taraya maanta markuu halkaa daaqay kiishka sokorta inuu $125 maraayo isluubi waxa weeye waxay la tahay kulli naftuun baa dee iminka direyska ku dhimanaysaan laakiin waxa weeye anagu hoos waan u ognahay shacabka iyo maatada maanta wixii ay doonayaan inaad ka hortaagan tihiin haddaad tihiin jabhadda ST war dadka bal mikrofon la dhex qaado maxaa qabtaan maxaa qabtaan maxaa annaga waxba nagama khusayaan taas idinka idin taalla laakiin waxaan ballan qaadaynaa waddada idinku iskiin yidhaaha Somaliland furayaashii noo dhiibaan iska furno waddada mooyaane in aanan anagu waxaa ku damqanay waayahay halkan bal waxaad iyagana ila daawataa nimankii saraakiisha ahaa ee Ethiopia ama kililka shanaad joogay oo si caadi ah uga sheekaysanaya iyadoo sarkaalkii u sarreeyay hortaagay uga qodbadaynaya ciidankeenu maalintaas sida ay u jabeen iyo sida ay u kala lumeen iyo sida loo qabqabtay waxaan ilaa horeba loola dagaalamin malaadi maanta waxay isku doonteen diga hoosta dhuxul kaga jirtay bal ila daawada ciidankii waa la shirqool caawan ii sheegaya maalin qurahaata ayaa 400 ilaa 500 oo wiil oo saraakiil iyo ciidan iskugu jira la shirqoolo la laayay Mustafa iyo Xuseen Xaashina way ka dambeeyeen weerar baan qaadnay magaaladii waan qabsanay magaaladii markaan qabsanay Mustafa iyo Xuseen Xaashin ayaa soo telefooniyay magaalada si degdeg uga baxa leeyay waayahay halka hadii aynu kaga nimaadno waad aragtaan dee malaaminka xoogga kama qarsoona hadalkoodii laakiin waxaan leenahay kuwii markaa sidaa kuu galay haddana waa jooga adar tignikana may haysan maalinta nimana khiyaamaysan oo inta tiraahaan hubka dhiga nabadgelyo isugu nimaan ku soo jarmaadeen baahida guryahoodii ku layseen laakiin maanta way soo jeedaan suxulkay saadulka ugu hayaan waliba saas wuxuu hibiriirsanaya waa nin gaar ka haya gurigiisii iyo maatadiisii tii oo kale laftigeedu annaga dib nooguma dhici doonto adigu iyadoo adoo soo gaadayba sidaa lagu galay iyadoo la soo jeedo maxaad u malaynaysaa waana lagugu sii wadaya waxaana weeye niman reer isaaq oo bariye dhaxaas ay soo qori jiray nabadgelyada cidda ogol baa dalaala qaataa ina cagjar waa kii halkaas si bareeraa ugu yiraanagu wax shacab ismaan arag 13 jirka la aasay iyo 7 jirka la aasay inuu wadi ka arkay maatadii malqacada la gurinayay guriyii la gooyay wadi ka arkay waxa laaliyo wax lagaga hayaa ma jirto walaal adiga khaldanba ama khalad ka daan saa ku qaadan awogeen hore xitaa kuma aqoon hadii kale waxa weeye warag way soo bareeraa meeshan yare kilka shanaad leeyahay dad wanu siman oo wadalaan sidii la doonayay hadii loogu dhaqmi waayo ama nabadgelyada iyaga laga baryaayo hadii iyagu bariye ku keeni waayaan oran lahaa adeerow nin waliba meel buu degan yahay Soomaaliya isma dhugdhuglayso halka degan tahay baa deganaanaysa ina cagjar waa ninkii soo abaabulay dagaalkii la ascaanood ee shirkii ugu horeeyay ku qabtay garaadada ugu qabtay jigjiga war islaam ayaa inta kale idinka aragtidina commentiga kaga dhibanayay saad u aragto waxaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeena caawa halka wixii aad aragtay qabtaan halkaas aad nagala soo hadlaysaan description